والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. ولا ليال سيدنا مقليني خطبتنا waxa aynu isku xusuusinaynay dhacdo kamid ah dhacdooyinkii adduunyada soo maray ee muslimiinta ku dhacay tii ugu xanuunka badnayd, tii ugu naxdinta badnayd, tii ay ku adkaatay intii maalintaa joogtaa bar badan oo kamid inay rumaystaan. waa geerideennii nabigeenni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. musiibo iyo dhacdo aad u xanuun badan bay ahayd, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qadaray inay dhacdo. dadka muslimiintaana waqti kastay joogaan duruus iyo casharo lama ilaawaani ay ugu sugan tahay. nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam sida Abi Saciid al-Khudri warinayo, maalin buu dadka u khudbadeeyay, kadibna waxa uu yiri nabigu alayhi salaatu wa salaam, ilaahay baa dooransiiyay adoomadiisa kamida adduunka iyo aakhiro ayuu dooransiiyay. adoonkaasi aakhira ayuu doortay. inta nabigu marka uu yiri alayhi salaatu wa salaam, Abu Bakr oo ag joogay oo maqlaayay ayaa ooyay, waayo hadalka nabiga waxbuu ka fahmay. saxaabiga xadiidka warinayay oo nin dhalinyaro ahaa ayaa waxa uu yiri, isagoo la yaaban baan waan isweydiiyay buu naftayda waxaan idhi, ninkan sheekhay odayga maxaa ka oohinaya haddii uu nabigu sheegay adoon ilaahay aakhiriya adduunka dooransiiyey oo aakhiro doortay. wuxuu yiri adoonkaas ilaahay uu dooransiiyey adduun iyo aakhiro nabigu alayhi salaatu wa salaam. Abu Bakrna wuu noogu cilmi badnaa oo hadalka ayuu fahmay in geeridii nabigu ay soo dhawaatay sallallahu alayhi wa sallam, oo adduunkii aakhirada la kala dooransiiyo aakhiradiisii doortay. wuxuu dareemay saacadii la kala dhaqaaqayay hadday nabiga isjeclaayeen inay soo dhawaatay. waxa uu dareemay sida nabigu adduunyada aan qalbigiisa ugu jirin iyo sida uga zaahidsan yahay. wuxuu dareemay sida uu jecel yahay aakhiro iyo rabbigiina la kulmo. imaamkii la oran jiray ibn Abdul Barr ayaa waxa uu leeyahay, geerida nabiga sallallahu alayhi wa sallam markay soo dhawaatay, xanuunkii ugu horeeyay wuxuu qabtay isagoo jooga guriga Maymuuna, mid kamid ah xaasaskii nabiga sallallahu alayhi wa sallam. kadibna nabigu markuu xanuunka dareemay wuxuu u baxay xabaalihii Uhud oo waxoogay Madiina u jira. asxaabtiisii ayagoo nabiga difaacaya oo diinta ilaahay difaacaya u shahiiday ee dadka ugu jeclaa ee halkaa ku aasnaa ayuu u tegay nabigu sallallahu alayhi wa sallam. ayadoo muddo ay ka soo wareegtay, yani 8 sano ayay ka soo wareegtay, ayuu xusuusnaa nabigu alayhi salaatu wa salaam. waxa yeelay waxa u dhintay waa diin, waa difaaca nabiga. qaar baa leebka iskaga dhigayay iyo seefta lagu soo wado. nabigu uu ku soo tukaday alayhi salaatu wa salaam, waanu soo duceeyay
waanu soo sabootiyey geeridiisuna soo dhawaatay ayuu dareemay calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo galay markuu xanuunkaasi ku soo kordhay Caaisha xaaskiisii waadka u jeclaa ayaduna aadka u jeclay nabigu sallallahu alayhi wasallam markay uu soo galay Caaisha ayaa iyadoo ila cabanaysa waxay tiri alla madaxa xanuunaya nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam waxa fiicnaan lahayd haddii arintaasi ay tahay aniga oo nool oo taadi ay noqoto oo ilaahay dambi dhaaf ku weydiiyo oo ku duceeyo way fiicnaan lahayd Caaisha kollay dumarka waa laga yaabaa ilaahay fidro iyo hinaasa ayuu ku abuuray waxa bay tiri oo goblamaye وملا وحابد مارتي أنا ملاينا يا إن تجاريده تعاش هاي هدي أي سلا صدق على هاي النبأ أتقولي جاب ملا قبل كلا تسوق قليل هاي ده هالكن لكن النبي عليه الصلاة والسلام يسوي حاول شيء إنه وكهر رينا أيه مركب ويدي أدي يقول رب كما هي بل أنا وراسه بل أنيق مدحا يا حنون عيه وحنون كيسو الشيء النبي صلى الله عليه وسلم عايشة وحلادي لا رلا كنغده رسولك عليه الصلاة والسلام حنون كيبا كسي سيادي مالنتو شوغبا وحو ويدين جري دمر كيسة أو مالو والبقوري لقين جري بريها الكيبان كسوغانا هاي بري قريبا ليقين اياه cadaaladu ilaalinaya isagoo xaaladaas ay ku jirto laga yaabaa nin laba reer leh ama saddex reer leh inuu meel kaliya iska fadhiisto isagoo caafimaad qabo oo cidii kale xuquuqdoodii uu dayaco laakiin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo xaalada ku jira oo kala garanay meel ku sugan oo oran jiray bari halkee la geeyay gurigee baan ahay markii dambe ayuu ka niqaatay dumarkii in lagu baxnaaniyo guriga Aisha radiyallahu anha waxa leedahay Aisha markii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku soo ziyaaday sakaratul mawtki walbiya ku jiraan ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam agtiisa yeelay labada gacmood intuu galiyo oo biyaha uu soo qaatay iyo jirkiisa shariifka ahaa marinayay oo biyahaas uu ku shubay mararka qaar koodna qirbad biyaha amba sibraar dhan oo biyaha lagu shubayayba xanuunka iyo kulaylka iyo sakaraadka ka baxaya nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo biyihiisa gacmaha ku masaxaya ayuu lahaa laa ilaaha illa allah ilaaha alla mooye alla mawdku sakaraad buu leeyahay alla mawdku sakaraad buu leeyahay yaani nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhadhamiyay oo waa la tusay xanuunka sakaraatul mawdka nabiga calayhi salaatu wasalaam kalimaadka markuu yiri gacantiisa ama fartiisa ayuu sare u taagay isagoo ilaahay weydiisanay inuu xaqiisa u qaado oo leh اللهم في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى إلهي سبحانه وتعالى حقي سيسقى دون آية عايشة waxay tiri in yar kadib fartiisi uu sare u taagay ba hoos u dhacday nabigana calayhi salaatu wasalaam waa la qabtay waxaanay tiri nabigu calayhi salaatu wasalaam inta dhuuntayda iyo garhkayga u dhaxaysa ayaa madaxiisa uu ku sugnaa markii nafta laga qabtay anigoo taa u soo jeegay bay tiri cid dambe nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dabadii ugama naxayo bay tiri marka waxa weeyaan amba uma karaahaynayo kulaylka iyo dhibta marka geerida nabi maxamed ba waa u dhadhamiyay qof walbana waa dhadhaminaya walaalayaal nabiga calayhi salaatu wasalaam sakaratul mawt hadii uu ku dhacay
أو أركي علماء وحي يراهدان ودرجتي سو إلهي سبحانه وتعالى وكريه لي أو رفعنا يي وإلا النبي صلى الله عليه وسلم دنبقي سيهوري يكيسي دنبابا والا دافي نبي عليه الصلاة والسلام مركو باحا دقيي يحنون كاسي وهيي وحاك جوغتين انتي سي فاطمة بنت محمد أيضا كان وليد انتي ونبي قد عليه الصلاة والسلام وقت قاس كالي قد بانا كدن بيسي النبي عليه الصلاة والسلام وحي لا دهي مركا أركتي سكرات كي يدبت النبي عليه الصلاة والسلام باحد دقايو وكرب أباه الله دبت أباه هيستاي أيه ترى أيضا مركوات كيسان لا نبي عليه الصلاة والسلام وحري ليس على أبيك كرب بعد اليوم أبو ما أنت كذب نبدأ مو أباه ولا كل ما يمجرته نبدأ مو أركا يمجرته الدنيا دي يدبتدي الرفات كذي ما أنت قدام بيسه نعم ولا ليال قف قد وحصيه المرصده هدو قد كآخر وحصيه نكته هدو عمل ولا أكسسيه المرصده وهو كفر حياه الكوصعده لكن إلهي نقبت باديه هدينا وحبه المرصن ولا ليال ولا ينوبقيه ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الدمية وأركي سكرات الموت كام حاد نوملين فاطمة مركبة يدود دكتي أيتني يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه أباها يو وحدا جيبت ربي كون يالي حقيس ربي كون يالي وحقيس كوكو باغي أيها جيبتي وحيتني يعني وحوي ملك جبريل صاحبك النبي وحيga u keenayay ayaan markaa u baroordiiqaynaa oo u sheegaynaa in Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adduunyada ka tagaayo walaalayaal dhacdo aad u xanuun badan bay ahayd oo soo martay muslimiinta rasuulka alayhi salaatu wa salaam isagoo xaaladda ku jira ugu dambeysay ayaa hamigiisa hadana waxa ku jiray ummadiisa waxay ku badbaadi lahayd xanuunka ayuu marisa soo qaaday nabiga sallallahu alayhi wa sallam سومير دار صومي سو هادنا يسيرو صباح ددكي سومير دار صومي مركو صوتو صوميرابي ايا النبي دردارنكيسي وحوها الصلاة وما ملكت ايمانكم وارصلاة كورهيا يا ددك عنتينا كجيرا ددك ادومدا غعنتينا كجيرا ونا حريستا تابو دردارنكيسي النبي صلى الله عليه وسلم مركله waxa kamida kalimaadkiisa ugu dambeeyay la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid ilaahi nacdashiisa korkooda ahaatay yahuud iyo nasaaro maxaa yeelay xawaalihi anbiyadooda ay masaajid ka dhigteen taana waan idin ka digaya yahuudda nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam isagoo adduunyada ka sii socda uu nacdalayay ayaa maanta laga dhiganayaa kuwa xidiga oo la dabagalo oo dhaqanadooda iyo mabaadi'dooda iyo dasaatiirtooda waxoodii oo dhan laynoo qurxinayaa kitaabkii ilaahayna subxaanahu wa tacaala laynagu kari laayahay haddaynu nahay dadka muslimiinta iyo dowladaha muslimiinta inaynu maxakamadeena keeno inaynu ku dhaqanno inaynu ilaahay kaga baqno subxaanahu wa tacaala wuu nacdalay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam yahuudiya nasaaro dhaqankooda iyo dasaatuurtooda iyo waxay rumaysan yihiin horumarna ma hayaan had iyo habeen waxay u taagan yihiin siday u shirqooli lahaayeen ay u baabiin lahaayeen ay u dabar jari lahaayeen dadka muslimiinta laakiin maye kuwii nabi maxamed la dardaarmayay ee dardaaranka kaga tagay walaalayaal casharadaynu ka qaadanayna muhiimka ah geerida nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam inaynu dhamaanta yaqiinsano inayna adduunyadan ka tagayno qofka soo noolina uu ka dhaqaaqayo ilaahay baa ku yiri nabi maxamed
إنك ميت وإنهم ميتون أيقول ويدمنا يعنوا دمنا يسا إلهي بيدي كل نفس ذائقة الموت نفو اللي بقيري بيدي دمنا يسا قيري بينو دمنا قبر بينو كسعنا حساب بينو قدم بيسا وإن نسبر والبيس ويدينا محاين هور مرسلنا محاين نقاه الرئيين مالنتا سيدقاني سيدو كلا وحاكم وغطا حديث كان كبلوني نبي مركي لدور سيا دنيا آخرة سيداني الدنيا داكتي سقيمة ولا قول هاي وآخرة ودورتي لذلك يا صحابي كم إذا صحابة رسولك وحلي عليه الصلاة والسلام رسولك الدنيا وحو كتغي يعني الدنيا وحو كتغي نبيكو كغمانو تغين هل دينار إيا هل درهم والله عقي وقت قال قالن جري الذهب كي في الضداها يا أضان طانا وحو كغتغي الدنيا بقشيسي عضيد او فولي جيري iyo hubkii uu dagaalka u qaadan jiray oo kaliya iyo dhul yar oo waliba uu waqfay dadka socotada ee muslimiinta inay galaan intaas waa adduunyada kaga tagay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay sidoo kale nabigu alayhi salaatu wasalaam waxa la oofsaday ayadoo qalabkiisii dagaalka qaar kamid ah oo diriciisii uu gashan jiray seefta iyo warmaa uu ka gashan jiray uu ku rahman yahay nin yahuudiya ninka yahuudiga wuxuu ka qaatay nabiga sallallahu alayhi wasallam soddon galaan oo raashina oo reerihiisa uu siiyo ayuu ka qaatay halkee maanta laga helay nin hogaamiye iyo magac leh oo xaaladiisu heerka ay gaadho oo waxa weeyaan isagoo adduunyo caynka ka dhaqaaqaya walaalayaal geerida nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam muslimiinta waxay ahayd musiibadii ugu weyneed ee soo marta waxa la yiraahdaa musiibo ka weyn oo muslimiinta lagu imtixaamay may jirin geerida nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wax kastoo ka dambeeyay way ka fudud yihiin lidalika ayaa ibn Abbas wuxuu leeyahay waxa mid kasto nabiga yiri mar qof kasto idin kamid ah haday musiibo ku dhacdo oo dhibaato ay ku timaado ha xusuustoon dhibaatadeedii marka wax way geerideeda ha xusuusto arinta marka ku dhacdo way la fududaan doontaa oo waxa weeye waxa u noqon doontaa inay taasi kaga weyneyd sidoo kale muslimiintu waxay yiraahdeen Madiina magaaladii nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintii uu soo galay rasuulku alayhi salaatu wasallam wax waliba way iftiimeen iftiin iyo nuur bay noqotay maalintii nabigu geeriyooday sallallahu alayhi wasallam wax kasta mugdi bay noqdeen saxaabadu waxay yiraahdeen anagoo gacantaba ka qaadin nabiga sallallahu alayhi wasallam xabaashiisi oo aan boorkii gacmaha iyaga ka tumin ayaan qulubteedii isbedel ka dareemay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam duu geeriyooday sunnadiisi oo culimada muslimiinta ay noo xafideen bayna dhex taala oo loo baahay inaan barano oo inaan ku dhaqano oo inaan xafidano oo ubadkeen iyo oriyeen iyo guriyeen iyo bulshadeen oo dhan ay waxa weeyaan ay walaalayaal bartaan ilaahay waxa uu weydiisanaa subhanahu wa ta'ala inuu inaga dhigo kuwii nabiga sallallahu alayhi wasallam xawdkiisa ka caba kuwii ilaahay la soo xashriyo kuwii ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada agtiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala meel uu ka siiyay inuu ilaahay naga dhigo ilaahay waxa uu weydiisanaa inuu nagu arsaaqo xubbigiisa iyo siiradiisa inaynu marka waxa weeyaan aynu noolayno oo aynu feena ka muuqdaan ثم صلوا وسلموا من أمرت بصلاة وسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الأربعة وصائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حببنا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا باتباعه يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.